habeenkii xalay ahaa waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug lagu magacaabo Quraanka iyo Sayniska oo qoray qoraa Siciid Maxamuud Gahayr waxaana ka soo qayb galay wasiirka maalgashiga Soomaaliland Axmed Maxamuud Cawid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen Abwaan Yuusuf Ismaaciil Cabdi Jaheey qoraayo mas'uuliyiinta shirkadda Asalshed oo ah shirkadda daabacday buugan iyo dhalinyarada aqoon-yahanka ee ku nool magaalada Hargeysa ugu horreynba waxa madashaasi ka hadlay qoraaga buugga Siciid Maxamuud Gahayr oo ka sheekayay macnaha ku duugan buugga iyo sababaha ku kalifay inuu buugani qoro buuggan Quraanka iyo Sayniska waxa aan qoraalkiisa bilaabay sanadkii 2008 markaas oo aan joogay dalka Pakistan inta badan waxa ay Soomaalidu wax ka qortaa suugaanta iyo taariikhda iyo sheekooyinka xilligaas waxa aan helay aqoon fara badan oo ku saabsan culimada heerka caalami ee luqadaha kale ku hadla kuwaas oo igu dhiiriyay inaan isku dayo inaan wax ka qoro mowduucan haddaba talo Siciid Maxamuud Gahayr haddii uu ku taqaaneen inuu waxna qoro gabayana tiriyo diinta aqoon nooceed uu leeyahay waa meesha imanaysa manin mowduucan iskaga soo boodayba shawaan talo diinta aqoon u leh iskuulka waxa la qoray 93 waxaan xasuustaa anigoo fasalkayga dhibcaha ugu sarreeya ku hogaaminaya ayaan maadada carabiga dhacay oo 0 baan keenay 0 ayaan keenay talabaatan qiimeeyna way macallimiintii noo dhigaysay intayadii 0 ka keentay 20 qiimeeyna baan la siiyey 20kii markii la igu daray dadka qaar baa carabiga boqol keenaya iyadoo 0 baan keenay haddana kaalinta saddexaad baan fasalkayga u galay كامو كوربي هدف نادي وين ببرجع ليشي إن وحيكون نقطي واجب مركاين عندنا كورس على أقوام تيجي عربي مرعمود وندقين تري ليش كده مركان وحكبر تري وحي هاي مساجد ده كل سجال بقول سجال شنكي أما فريسة كاشكي هذا أيام بلا مركز إنهم برضو تفسيرك قرآن كريم كأه كوستو ضينا وحال كاسك هذا قرآن حسن عبد المدار يوم مولد آدم بيحي وهبلينا إرجع هبليه هذا وسماري ودعو ولا معنيه ودعو إنه دعينا ونهبلينا هو في عنده قطعي قراء يبغى كلمة هو مفكر كان يدونك يما بدنا بكلية قرآن كان هو معجزة خالد كاي واريسا نبي عليه الصلاة والسلام وحل بسوق شيء القرآن كحلة عربي أي كتاجنيد هذا كيا وراه كوس الرئيسية فكتة حلة أي حلية ذا أشهر الحرم كلاينا هذا بلا استوى حالك سجبي كهذا لا قيمه وقرآن كليه هي كتري أبوان يوسف إسماعيل عبد جهي وقال النبي كل قال النبي كلاوير هوين كنا غير قبابي غير دمناو كلا قال إيه لقوي إلا يسخرت كيس أما لقلا قينون كيلا أحكام تقريس إلا يسكو قصاص لا بدي يستري هدا يغرمي ويدو أحكام تقريس إن حلقة توبي أحكام تقريس مغليس كقاته الوين يقال وين قادر بنيي ضمنتنا waxa madashaasi ka hadlay aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen Quraanka iyo Sayniska وأنا بحنا واحد أنا وأركان اللي هاي مركي ورئيسة بوقتها الصومالي لجوجر في طبيعة النوع عصوكلا أنت بدن لغتها كلها في جريسي هاي يوم بقول كشرية ولا جوجر ولا جا حضو قرآن هي ساينس كي يحيلها يسكوا فقسيه ينلش عصري يسد قرآن كي نعود بقيس كنانتكينا waxaa soo afmeeray madashaasi wasiirka maalgashiga Soomaaliland Axmed Maxamuud Cawid Siciid markan wax dhiganay intii halka fadhidaaba macallimiinteena ama sheekhiyeena ama siyaasiyiinteena hore wax qoraya kumaynan garaadsan badana inta badan hadalkeenu ku garaadsan inaan hadalo laakiin runtii haduu qoraalkii noo bilaabmay oo runtii imka buugaagta ugu badan inaan halkan ka hadlayay asal wuxuu noo sheegay kaliya inuu 40 buug joogay shirkadii kale maxaad u malayn intii ka horeysay maxaad malayn qoraalkii af Soomaaliga uu noo soo badanaya runtii in dadkeeni wax lagu gaarsiiyo oo baahi weyn loo qabay Mr. Masiid Ali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa